waan dareensanaa harista saaxiibkay iga digay. waxaa guul weyn ah in markii ugu horeysay cadaalad ay helaan xildhibaanad aamino iyo weliba sidoo kaleeto ikraan taxliil faarax sargaaladii ka tirsanayd hay-adda sirdoonka qaranka nisa oo iyadu kiiskeeda aan ogeyn inuu muddo dheer soo socday islamarkaana marar badan ay isku dayeen qaar ka mida ehladeedu inay cadaalad u helaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan wadanka maraykanka ayaa la horkeenay cadaymaha la xidhiidha ciddii ka dambeysay allah u naxariistay sargaalad ikraan taxliil iyo weliba sidoo kaleeto xildhibaanad aamino labadooduba waxaan ogeyn in markaasi xilligii ay la dilay ama ay dhinteen ay adkayd xaaladda. waxaan ogeyn marar badan in taliyihii hore hay-adda sirdoonka qaranka nisa uu cadaymo hor keenay qaar ka mida mas-uuliyiinta xisbiga damul jadiid laakiin arrintaasi gebi ahaanba ay gaashaanka u darureen. dhanka kale sirdoonka maraykanka ayaa waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud la wadaageen dilalkii taliyayaasha ciidamada haramcad iyo weliba sidoo kaleeto taliya bakaal oo dhowaanin lagu dilay gobolka gado halkaasi oo iyadana ay ka taageenayd xaalad cakiran waxaana madaxweynaha dhammaanba la hor keenay cadaymaha la xidhiidha cidda ka dambeysa dilalka qorshaysan ee loo geysanayo mas-uuliyiinta ugu sarreyso dalka soomaaliya. dhinaca kaleeto maamulka jubbaland oo warbixin ka soo saaray kiiska taliya bakaal koke ayaa ku cadeeyey ciidamada etoobiya iyo weliba sidoo kaleeto gudoomiyaha gobolka gado inay ka dambeeyeen dilkii allah u naxariista taliya bakaal koke. haddaba xogahan ay maraykanku la wadaageen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxay ka bedeli doontaa dilalkii iyo weliba sidoo kaleeto beegsigii lagu hayay maalmihii ugu dambeysay saraakiisha ciidamada iyo weliba sidoo kaleeto dadka shacabka soomaaliyeed ee iyagu aan waxba galabsanin maxayse yacni xogta maraykanka kaga duwan tahay tii horeyba ay u gudbiyeen saraakiisha iyo weliba sirdoonka wadanka turkiga kuwaasi oo iyagu la wadaagay xogta ciddii ka dambeysay dilka taliyihii ciidamada haramcad iyo weliba sidoo kaleeto ikraan taxliil faarax oo iyaduna aan ogeyn inay marar badan sirdoonka wadanka turkiga waa isku dayeen inay xogto dhammaystiran ay siiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laakiin gebi ahaanba uu arrintaasi madaxweynaha u arkayey ku markaasi lagu boor qarinayo kiiskan ciddii ka dambeysay islamarkaana taliyihii hore hay-adda sirdoonka qaranka nisa oo asagu markaasi ku rana. madaxweynaha ayaa gebi ahaanba arrintan ka hadlay waxaadna moodaa in madaxweynaha tallaabada uu qaaday iyo weliba go-aanka uu ka hor ballan qaaday boqolaal soomaaliyeed oo xalay ku soo dhoweeyey magaalada minnesota halkaasi oo madaxweynaha iyo wafdigiisa loogu qabtay xaflad heer sare ah taasi oo markaasi madaxweynaha laga dalbanayey inuu gebi ahaanba cadaalad u sameeyo dadkii dhibaatada lagu geystay xilligii kambeynka iyo sidoo kaleeto shuruudo adag iyo weliba su-aalo ay hordhigeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa. daawadayaal waxaan dhanka kaleeto eegi doonaa dhammaanba su-aalaha adag iyo weliba sidoo kaleeto sirdoonka maraykanka xogaha uu u gudbiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo waxa uu ka qaban karo iyo sidoo kaleeto tallaabooyin si hordhaca uu u qaaday ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa. daawadayaal dayta markaad kugu horeysay oo halkan aad soo gaadho janalka subscribe saar oo gaadhsiya asxaabtaada kale hore haddaad noola joogtayna waad ku mahadsantahay daawashadaada halkaa kasii wada. haddii aynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sirdoonka wadanka maraykanka ayaa ku kulmay goob markaasi ammaankeeda aada loo adkeeyey waxayna markaasi madaxweynaha la horkeenayey cadaymo la xidhiidha ciddii ka dambeysay xildhibaanad markaasi aamino iyo weliba sidoo kaleto sargaalad ikraan taxliil oonayn kiiskeeda in sanadii ugu dambeysayba uu si weyn u haystay social media iyo dhammaanba baraha markaasi soomaalidu ay ku wala xidhiidho. si kastaba kiiskan oo wajiyo badan yeeshay marar loo saariyey ra-iisul wasaarihii hore xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble marar kalena loo saariyey nabad iyo noolal iyo xisbigii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo gaar ahaan fahad yaasiin inuu ka dambeeyey. si kastaba xogta oo dhammaystiran ayaa loo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana laga dalbaday in gebi ahaanba xogta la siiyey uu tilaabada kaga aadan uu qaado taasina ay tahay shardiyo markaasi ay maraykanku usoo dhiibeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. madaxweynaha waxaa la hor keenay kiiska oo taariikhaysan kuna astaysan markaasi goobtii lagu dilay iyo weliba sidoo kaleeto cidda ka haysatay maxaa la dhihi jiray sargaalad ikraan taxliil iyo weliba sidoo kaleeto xildhibaan aamina oo iyadana lagu qarxiyey magaalada beledweyne. si kastaba madaxweynaha waxaa laga codsaday in tallaabadan sida ugu dhaqsiyaha badan uu fuliyo cidda markaasi la tusay ee la hor keenay ama markaasi cadaynta ku suntanaydna waxa uu ahaa taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad iyo weliba sidoo kaleeto ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
soomaaliya maxamed xuseen roble iyo wasiirka warfaafinta amaandhe wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala sidii horeyba uu sheegay taliye fahad yaasiin xaaji daahir. waxaana moodaa xogtan maraykanka markaasi uu horkeenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay tahay midii ugu kama dambaystahayd. mar badan dowladda federaalk soomaaliya waxaa la horkeenay xogo iyo cadaymo la xidhiidha markaasi in weeraro lagu qaadayo villa soomaaliya, xarumaha dowladda iyo weliba sidoo kaleeto saraakiil hore loo dilay. laakiin arintaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo markaasi sharafta wadanka ilaalinayo waxa uu gebi ahaanba arintaasi iska indhatiray. waxaana ogeyn weliba in qaraxii ka dhacay Soobeetu laftirkiisa in xogta lala wadaagay madaxweynaha iyo weliba sidoo kaleeto xubnaha ugu sareeya dowladda federaalk soomaaliya ayagoo sharafta wadanka iyo weliba awood muujinaya ayayna gebi ahaanba arintaasi iska waxaan ogeyn in boqolaal Soomaaliyeed ay halkaasi ku dhinteen. waxaanad moodaa haatan in madaxweynuhu uu tallaabooyin hordhaca qaadayo sifo gebi ahaanba markaasi xogtan aysan u noqonin mid beeldara. dhanka kale sirdoonka Mareykanka ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud la wadaagay dilalka taliyaashii ciidanka Haramcad iyo weliba sidoo kale taliya Bakaal oo dhawaan lagu dilay gobolka Gedo kaasi oo xiisad xoogan ka dhaliyay guud ahaan maamulka Jubbaland iyo weliba sidoo kale maamulka gobolka Gedo. si kastaba xogtan iyo weliba macluumaadkan dheeraadka ee madaxweynaha lala wadaagay sirdoonka wadanka Mareykanka la wadaageen waa kuwa markaasi muujinaya in taliyaasha la leynayo iyo shirqooladan la dhigayo markaasi lagu shaqaysanayo kooxo argagixiso ah. waxaana markaasi fangaraynaya mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya. waxaana lagu bixinayaa dhaqaale aad u tiro badan ayagoo markaasi fulinaya wadamo kaleeto oo markaasi aan rabin ciidamada Haramcad iyo weliba ciidamada Soomaaliya ee taabagalay taliyaasha ka kan ee markaasi la dagaalamaya kooxaha argagixisada intuba ayagoo kasoo horjeedo ayaa mas'uuliyiin markaasi loo soo dhiibaya malaayiin lacaga sifa markaasi ay ugu macaashaan dhiiga ummadda Soomaaliyeed. xogtan waxay muujinaysaa in markaasi wadamada dariska la wadanka Soomaaliya inay ka dambeeyeen dilkii Allah naxariisto taliya Farxaan Qorole. waxaana loo adeegsaday taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka Nisa Mahad Salaad iyo weliba sidoo kaleeto taliyaal kaleeto oo aad ugu dhawaa taliya Farxaan Qorole iyo weliba ku-xigeenkiisa. arintan ayaa muujinaysa in xogtii hore ee ay bixiyeen wadanka Turkiga sirdoonkiisa oo ogeyn inay ku aadaneed ayaduna in xog noocan oo kale ta ayaguna ay dhibeen oo gebi ahaanba ay shaaciyeen inay ka dambeeyeen wadamada dariska la wadanka Soomaaliya oo dabcan aanu haatan rabin inaan magacyadooda sheegno iyo weliba sidoo kale wadanka isku tagay Imaaraadka Carabta oo ayagu ku bixinayo dhaqaale aad u tiro badan isla markaana u adeegsanayo shakhsiyaad Soomaaliyeed oo markaasi ayagu inay kuwa markaasi mar walba ka macaasha dhiiga ummadda Soomaaliyeed. macluumaadkan ay bixiyeen sirdoonka wadanka Mareykanka waa mid meesha ka saarayo in dhammaanba dilalkii qorshaysnaa ee loo geystay saraakiisha iyo kuwii loo geystay mas'uuliyiintii ka tirsanaa hay'adda sirdoonka iyo weliba xildhibaanada inay markaasi ka dambeeyeen mas'uuliyiin weli dowladda ka tirsan isla markaana calaqaad dowlo leh wadamada dariska ah iyo wadamada markaasi khalkhalka amni ka wado guud ahaanba dalka Soomaaliya. dhanka kale maamulka Jubbaland ayaa markii ugu horeysay warbixin ka soo saaray kiiska taliya Bakaal Koke waxayna ku eedeeyeen in dowladda Ethiopia ama ciidamada dalka Ethiopia ee ku sugan gobolkaasi Gedo ay ayagu ka dambeeyeen. dabcan xogtan ay bixiyeen ama warkan ay soo saareen maamulka Jubbaland iyo kan Mareykanku ay soo saareen waa mid aad iskugu dhow. waxaana moodaa in ay haatan calaqaadka Jubbaland iyo weliba midka dowladda federaalk Soomaaliya uu ku soo hagaagi doono macluumaadkan ay bixiyeen sirdoonka wadanka Ethiopia. dhanka kale maamulka gobolka Gedo ayaa ayagu gebi ahaanba arintaasi ilaa iyo xilligan aan ka dhaadhacsanayn. waxayna xogtan ayagu ay ku sheegeen in gebi ahaanba taliya Bakaal Koke uu u dhintay qarax loogu xidhay gaarigiisa kaasi oo sheegteen ururka argagixisada Al-Shabaab. waxay maamulka Jubbaland ama wasiirka arrimaha wasiirka amniga maamulka Jubbaland uu sheegay in cid kasta oo loo soo adeegsado weerarkan uu gebi ahaanba xogta ay hayaan uu cadaynayo in ay ciidamada Ethiopiaanku ay ka dambeeyeen dilka taliya Bakaal Koke waa sida Mareykanka laftirkoodu ay sheegeen. haddaba xogahan sirdoonka Mareykanka la wadaageen madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxay ka bedeli doonaan dilalkii iyo weliba beegsigii ciidamada iyo weliba sidoo kale dadka shacabka Soomaaliyeed loogu geysanayay guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. dabcan madaxweynuhu waxa uu qaadi doonaa tallaabooyin kala duwan oo markaasi uga jawaabayo go'aanka iyo weliba sidoo kale macluumaadkan lala wadaagay kaasi oo sii socon karo haddii madaxweynuhu uu tallaabo sharciya uu ka qaadin. waxaadna moodaa in isku soo dhawaasho ay halkaasi ka soo muuqanayso ku aadan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo weliba Fahad Yaasiin iyadoo weliba si hordhaca tan iyo intii madaxweynaha lala wadaagay xogtan ay soo baxayso in gudoomiyaha golaha shacabka
uu fasaxay kursigii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaana la arkay warqad markaasi la soo dhigay barta ay baarlamaanku ku leeyihiin Facebook waxayna arrintan u muuqataa ama macluumaadkan ku tusaysaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo markii horeba ku dhaganaa kursigan gabi ahaanba uu ka fuqay sifa markaasi isku soo dhawaasho halka uga soo dhawaato taliyii hore hay'adda sirdoonka oo xoog badan gacanta ku haya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waana arrinta markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay Mareykanku si toos ah ugu khasbayaan inuu gabi ahaanba isku soo dhawaasho halkaasi uu ka muujiyo dhanka kaleeto waxa ayadna isa soo taraysa in xogtan Mareykanku uu bixiyay horeyba uu bixiyay wadanka Turkiga haatan waxay noqon doontaa in Turkiga iyo waliba aan sirdoonka wadanka Turkiga iyo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay si dhow wada shaqeyn doonaan maadaama xogtan ay horey u bixiyeen madaxweynuhu gabi ahaanba gaashaanka u daruuray haatanna khasab looga dhigay inuu xogtaasi sida ay tahay uu qaato madaxweynaha oo markaasi xalay kulan la yeeshay boqolaal Soomaaliyeed oo markaasi ku soo dhaweeyay magaalada Minnesota ayaa ballanqaad u muujiyay inuu gabi ahaanba cadaalad u heli doono dadkii lagu laayay xilligii doorashadu ay socotay iyo waliba sidoo kale saraakiisha beegsiga lagu hayo ayagoo waliba arrintaasi aad ugu adkeeyay madaxweynaha inuu gabi ahaanba wax ka qabto maadaama aysan jirin cadaalad markaasi si toos ah uga hirgashay gudaha dalka Soomaaliya tan intuu isbedelka ka dhacay dalka gudahaan daawadayaal xogahan iyo macluumaadkan soo baxayo waa kuwa markaasi ifafaalo u ah in markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhabihii uu ka soo laabtay ee dawladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu cagta saaro dhanka kalena maadaama ilaa iyo xilligan wax kulana aan dhaxmarin madaxweynihii hore iyo asaga waxay khasab ku noqon doontaa in markaasi calaqaadku si toos u hagaago nabadii nolol oo abaabul xoogan ka waday dalka Soomaaliya in gabi ahaanba ay joojin doonaan oo xisbiga Damul Jadiid ma uu haatan si toos ah u milmi doono siyaasadii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walow ay jirto isgiijin iyo waliba sidoo kale inay madaxa taagayaan haddana ugu dambeyn waxaa lagu khasbayaa in talaabooyinkii hore iyo habdhaqankii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dalka dawo u ahaa isla markaana hanaankan deen cafinta iyo hanaankan dawladnimada ee fafaalaha dawladnimada taagan inay ayagu gabi ahaanba arrintaasi ka dambeeyeen ciidamadii iyo waliba tababaradii socday oo guud ahaan istaagayna ay halkoodii ka sii bilaaban doonaan maadaama calaqaadka Turkiga iyo markaasi dawladda Xasan Sheekh Maxamuud uu noqonayo mid halkiisii ku soo laabto qadar iyo waliba wadamadii hore dhaqaalaha markaasi ku bixin jiray ciidamadana ay si toos ah haatan ugu soo laaban doonaan saaxadoodii ay ku lahaayeen ama markaasi positionka ay ku lahaayeen dawladda federaalka Soomaaliya gudahaan daawadayaal qodobadaasi ayaa u dambeeyay waxyaabaha ka soo kordha arrimahan iyo waliba sirdoonka iyo kiisaskan haatan soo kordhay iyo cadaaladan laga sugayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaybaha dambe ee wararkeena ayaadna ku maqli doontaan tan iyo kulanti dambana waxay naga tagay sidaas amaanaal